ورحمة الله وبركاته ولا لها قيمة بدن قضبض ugu weyn barnaamijkeena waxa kamid ugu dambeyn warbixin soo baxday ayaa sheegayso in madaxweyne Donald Trump uu si rasmi ah ugu fashilmay dagaalka Iran maanta waxa uu buuxsantay Trump 100 maalin oo uu khilaafka Iran iyo dagaalada uu ku qaaday ay socoto ama ay gashay waxana wali socdo duqeyman iyo weerar goosgoosa oo ay wali isdhaafsanayaan Mareykanka Iran haddaba maxaa isbedelay maxaa dhacay macluumaad iyo warbixin cajiib arinta ku saabsan ayaan idin hayaa iyo fashilka uu Trump dhex fadhiyo 100 maalin kadib qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku heenay iyana waxa kamid ah warbixin cajiib ah iyo TV-ga channelka afraad ama channel 4 ee dalka Britain ka diyaariyay gudaha magaalada Tehran oo ay wariyaasha channelkaasi booqdeen waxa uu wariyaha halka ka soo hadlayay sheegay in dadka reer Iran uu su'aalo cajiib ah weydiiyay laakiin waxa aad iyo aad soo jiidasho u leh sida wariyaha uga warbixiyay magaalada Tehran ee dalka Iran iyo jawaabta dadka reer Iran ay bixiyeen duruus waaweyn baa ku jira meeshan oo aanu barnaamijka ku eegi doono qodobka ugu dambeeyana barnaamijka waxaan idinku hayaa macluumaad iyo warbixin weyn oo ku saabsan go'aan ay qaateen dadweynaha reer Lebanon iyo culimada dalkaasi sunniyiinta shiicada reer Lebanon hal go'aan bay qaateen gaar ahaan culimadooda masaajida shiicada Lebanon masaajida sunniyiinta Lebanon ay 28 February ama bishii labaad markii ay Mareykanka Israa'iil weerar lama filaan hal mar ay ku qaadeen magaalooyinka waaweyn ee dalka Iran oo kala ah Tehran, Shahraz, Qom, Kish iyo kuwa kale oo ay sidoo kale ku jiraan Isfahan, Fardos, Natas oo ahayd xarumihii la sheegay nuclearka dalka Iran in ay yaaleen laakiin weeraradaasi Iran waxa durbaba la soo wariyay in looga dilay hogaamiyihii sare ee dalkaasi saacada markii ay socdeen ama in saacada ka yar waxa la dilay Ali Khamenei maalmo kadib Iran waxa laga dilay la taliyihii ama hogaamiyihii la taliyaha amniga dalka Iran ninka ugu sareeyay Ali oo isagana aad looga ixtiraamay gudaha dalka Iran maxaa xigay marka dagaalkii waxa uu socday muddo dheer laakiin waxa cajiib ah Trump iyo Mareykanka iyo Netanyahu waxa uu madaxweyne Trump sheegay in 6 isbuuc ugu dambeyn ay dagaalka Iran ku soo gabagabeynayaan laakiin maanta dagaalka waxa uu galay 100 maalmood Iran waxa ay burburisay saldhigyo muhiim ah oo Mareykanka uu ku lahaa dalalka Khaliijka oo ay ka mid tahay Imaaraadka, Kuwait, Bahrain, Oman iyo kuwa kale waxa sidoo kale laga soo riday diyaarado dagaal oo ay ku jiraan diyaaradaha casriga Mareykanka waxa ay sidoo kale Iran weerartay safaarad Mareykanka u leeyahay intaas oo kaliya Iran ma sameeynin Iran waxa ay beegsatay maraakiibtii casriga Mareykanka ee badaha Carabeed ku sugnaa waxay sidoo kale Iran beegsatay magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil oo ay ku jiraan Tel Aviv iyo qaybo kale oo ay ku jirto Eilat waqooyiga koonfurta intaba waa la beegsaday waxa uu dagaalka socday maalmo badan kadib Mareykanku waxa ay garowsadeen in awoodda military iyo filashadii Mareykanka iyo Israa'iil ay ka filanayeen Iran inay ku soo afjaraan ay socon karin hadda 100 maalin kadib waxa socon la wixii ay Mareykanka rabeen oo ah in regime change nidaamka Iran la bedelo Iran waxa ay isticmaashay farsamo yaab leh waxana kamid ah farsamooyinka ugu waaweyn ee Iran isticmaashay drones khatara gantaalada ridda dheer Fatih iyo kuwa kale ayaa lagu garaacay goobaha sida daran loo garaacay waxa kamid ah xulufada weyn ee Israa'iil Imaaraadka Iran waxa ay sidoo kale la soo baxday awood dhinaca doomanka dheereeya ah taas oo ay dhanka badda kula dagaalantay ugu dambeyn Mareykanku waxa uu ku qasbanaaday in miiska wada hadalada uu yimaado hadda Trump ayaa doonaya in wada hadallo la galo arintana xal nabadeed lagu dhameeyo Iran waxa ay diidaysaa wax aan ka yarayn in loo soo celiyo hantidii ka maqnayd magdhow la siiyo dagaalka Lebanon la joojiyo kooxaha iyada raacsan faraha laga qaado waa meel aysan markii hore ku gorgortamaynin maanta waxa ay taagan tahay Iran meel adag dhinaca miiska gorgortanka maxaa hadda taagan 100 maalmood kadib waxa xiran Hormuz oo furnayd dagaalka ka hor tanina dhammaan qubarada waxay isku raaceen in ay tahay fashil uu dhex taagan yahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waatana TV Sky News oo warbixintan ka diyaariyay It's 100 days since President Trump broke the news a short time ago that Operation Epic Fury had commenced.
the United States military began major combat operations in Iran. A declaration of war, or maybe not. We took a detour down to Iran. It's going to be a short-term excursion. I call it a skirmish. Of course, war would require the approval of Congress, something the Commander-in-Chief has never sought. But then he never expected this military operation to last very long. We projected 4 to 5 weeks. 2 to 3 weeks. Don't rush me, Jeff. They said they weren't seeking regime change, but killed Iran's spiritual leader. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. So let's talk about US objectives. This was, we were told, about Iran's nuclear capability, but very quickly became about the Strait of Hormuz and who should control it. Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is. But it still isn't open. Iran won't let ships through it. The US Navy won't let Iranian ships out of it. And that shutdown of the world's busiest oil shipping route has driven inflation and prices through the roof globally. The president expressing his views on that in